aroornimadii hore ee salaada subax kadib ayay ahayd markii koox yar oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta oo aad u hubeysan ay weerar kula jarmaaday hotelka Saxafi oo hooy u ah siyaasiyiin xildhibaano jawaasiis iyo saraakiil military kana mid ah sidoo kale hotelada sida gaarka ah loo ilaaliyo ee uu ku badan yahay cadowga alle weerarka ayaa ku bilowday amaliyad istishaadi ah oo uu fuliyay hay'ad ka tirsan guutada istishaadiyiinta kadibna waxa xigay weerar iqtixaam ah oo walaaluhu ay ku galeen hotelka iyo toogasho lagu ugaarsanayay saraakiisha iyo xubnihii ku jiray gudaha hotelka idaacadda islaamiga Andalus oo howlgalka lagu soo wargeliyay daqiiqado un kadib markii uu bilowday ayaa xiriiro la sameysay saraakiisha mujaahidiinta kadibna waxa uu suura gashay in xiriir toos ah ay ka hesho halyeeyada howlgalka ka wada gudaha hotelka ee la xisaabtamaya cadowga alle mid kamid ah geesiyada aan la hadalnay ayaa ugu horreyn noogu bishaareeyay in ay ku guuleysteen weerarka iqtixaamka ayna saraakiil iyo askar isugu jirta gaale iyo murtadiinba ku dileen weerarka iyo amaliyadii ka horeysay ee howlgalka lagu daafuray ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى قال ذي ولاقي فرحات وين ركب تراكيل وبالصولة وكانوا الله يناي الحمد لله وكل الله عليكم فكرين الحمد لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكون شكرنا نايده waxa sameynaysaa waa noo soo duceynaysaa biin Allah taala gudaha waa iqtixaamka kadib ciidamada mujaahidiinta wuxuu Allah u gacan galiyay hotelka kadibna waxay bilaabeen howlgallo baaritaano oo qolqol ah oo ay ku baadagoobayaan madaxdii murtadiinta ee qolalka ku jirtay ma jirin kaafir ama murtad ka badbaaday xabadda mujaahidiinta ilaa wuxuu ka soo booday daaqada ama wuxuu isku soo xiray suuliga iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta hotelka ayna difaacyo fiican ka sameysteen gudaha hotelka ayaa dhanka kale waxa banaanka hotelka isku wareysanayay murtadiintii daaqadaha iska soo tuuray iyo kooxihii gurmadka ahaa ee halkaas soo gaaray waxaana banaanka camimay qayladaan baroor argagax iyo qalqal aad u daran walaal kale oo isna ay xabadu si daran kaga agdhicisay ayaa noo sheegay in Allah uu u fududeeyay in ay soo galaan hotelka ayna laayaan wixii ku jiray gudaha hotelka sidoo kalena cadowga ay u suuragal leedahay in uu gudaha u soo galo hotelka lana dagaalamo ciidamada mujaahidiinta ee halkaas ku jira ما شاء الله ما شاء الله أنا وأقول لكم تقوله أنا عبد وحواي واضعتا وعاب الله أنه يبنين أوفا بالنبا وحي مرساكي وكي من واو إمامي وان لايني سراء وقالب ووين لايني أو على الأوسي قالك أو على الأوسي وبضن في اللبان وبضن حدنا وحواي وانا شكري لايه iyadoo xaalku uu sidaas yahay dadkuna uu ka tambadiyay qalqalka ayaa mar kale banaanka waxa ka dhacay qarax kale oo aad u xoogan kaas oo lagu beegsaday dadkii gurmadka ahaa iyo kooxihii ka soo badbaaday gudaha sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta walaal kamid ah halyeeyada ku jiray gudaha hotelka oo aan xilliga la hadlaynay ayaa noo sheegay in qaraxa labaad ay ku halaagsameen gaalo iyo murtadiin aad u fara badan isla markaana lala helay kooxihii gurmadka ahaa xilligaas waxa hoolalka iyo dabaqyada hotelka gilgilay takbiir markii libaaxidii ku jiray gudaha hotelka ay arkeen sida loo laayay kuwii ka soo cararay xabadooda iyo kooxihii gurmadka ahaa مريض اللباط هذا مريض اللباط الله أكبر الله أكبر dhawaqa takbiirta ayaa gilgilay qalbiyada kufaarta iyo murtadiinta ma aysan u maleynaynin in ciidanka xarakad al-shabaab wal mujaahidiin ay ku takbiirsan doonaan hotelka Saxafi balse waxay iloobeen in marnaba aan laga guuleysan karin qoom geerida u raadinaya sida ay iyagu nolosha u raadinayaan oo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa markii ay gacanta ku dhigeen hotelka waxay bilaabeen inay burburiyaan sanamyadii iyo waxyaabihii shirkiga ahaa ee gaalada u yilay goobta mid kamid ah halyeeyada aan la hadalnay ayaa noo sheegay in gacantiisa uu ku jaxjeexay dastuurka kufriga ah ee kooxda ridada kaas oo yilay hoolka shirarka waxaana uu sheegay in Allah uu ku sharfay in isagoo nool uu agtiisa ka hoos mariyo buugga murtadiintu ay u xukun tagaan ee ay ka doorteen kitaabka alle gudaha amni waaye anaga ku jirno wax adow oo noo soo galay ama noo imaado ma jiraan waxa badan lagu soo ridaa xataa ma arkaayo waxa dhex taaganahay fiirin hoolka shirarka camal wax oo saasa dhex taaganahay
حتى دستور كوغارك هاي أنا قعدت كجحجح ما قرأت ما فهمت حد مشغول ودرنا عن هاي إن الصوت دلنا ربان إن شاء الله خير بدنا يكرمنا يا dadka lagu dayay weerarka waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin xilal kala duwan soo qabtay xildhibaano saraakiil military iyo gaalo kale waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tobaneeyo kale kuwaas oo qaarkood xubnaha ka jabay markii ay iska soo tuureen daaqadaha hotelka haliyay ka mid ahaa geesiyadii ku jiray hotelka oo mar aan weydiinay in uu faahfaahin naga siiyo dadka uu Allah gacmahooda ku cadaabay waxa ay yihiin iyo halka uu gaarsiisan yahay qasaaraha ayaa wuxuu ummadda ugu bishaariyay in weerarka uu Allah ku halaagay saraakiil ku caanbaxday dagaalka ay la galeen tawxiidka iyo ehelkiisa muslimiinta waxa ugu bishaareynayna ina dhiga badan oo murtadka muslimiinta iyo meesha ku dilnay murtadiin badan oo abdirashid ilqayt oo kamid yahay ku dilnay daala cadaan iyo murtadiin badan iyo saraakiil iyo xildhibaano meesha ku laadeen ayaa ugu bishaareynayna muslimiinta insha Allah anuun soo duceeyaan gaaladaas in Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala guuto jahannama ugu shubo insha Allah hasbunallahu wa ni'mal wakiil murtadka lagu magacaabo dhaga badan waxaa lagu xusuustaa doorkii uu ku lahaa xamladii lagu soo qaaday mujaahidiinta Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa 2013 iyo sidii kufaarta Afrikaanta uu kala shaqeeyay qabsashada magaalooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Soomaaliya maanta wuxuu u galbaday jahannamo sidaan u rajeynayno balse dilkiisa ayaa fariin u noqonaya qof waliba oo ku taagan dhabihiisii oo kale iyo midka hadda ku haminaya in dhabahaas uu soo fuulo wuxuuna qof waliba ogaanaya in godob waliba oo laga galo mujaahidiinta ay meel ku qoran tahay una xisaabtan ka dambeyn doono kol haday fogaato fadarowday nabadii annaguna nin farabaxay fasax baan siinaa fallaad baan cirka u diray fool bay la maqan tahay nin walba ila filo geeshkii fasaadkiyo furashada haweenkiyo feenashada dhalaankiyo dhiiga fuuqsigiisa fantasaha ku caanbaxay ma fasakhinin diidani ma fanjeestay geeshkii fule lagu cabsiin jiray dhabankii fayooba shan farood ma lagu dhigay dhiiga halyeeyadan hoggaanka u sida raayada jihaadka ee istishaadiyiinta waa amaanada ugu weyn ee qoorteena ku jirta waxaase ka sii daran marka walaalkaaga uu kugu adkeeyo in aad ilaaliso dhiigiisa mid kamid ah walaalihii fuliyay howlgalkii lagu qaaday hotelka Saxafi ee qaboojiyay qulubta muuminiinta ayaa reebay dardaaran dhaxalgal ah isagoo xabadu ay hariirihiisa ka dhacayso dhageyso oo si wanaagsan u dhuux si gaar ah mujaahidiinta kadibna weydii naftaada sidee lagu ilaalin karaa dhiiga shuhadadan oo kale oo iyagoo saaran faraskii geerida nagu sii adkaynaya erayadooda waxa u jeedinaa dadka muslimiinta inay diinka Ilaahay u jihaadaan wadankeena waa lagu soo duulay diinkeena in la bedelay rabaan gaalada walaalahayga muslimiinta Ilaahay dirtiisa waxa ugu baaqa inaysan dhiiga shuhadada dayicin inay Ilaahay dirtiisa jihaadaan inay cadowga la dagaalaan cadowgan insha Allah ta'ala wadankeena waa ka horeyn doonaa diinteena waa u madax banaanaan doonaa insha Allah ta'ala wadankeena shariicada islaamka wuxuu ku doonaa insha Allah ta'ala بإذن يعني يا كذا لدون إن شاء الله إلهي المسلمين كما وحاولي يا المسلمين هل الصبر قالنا هل الجهاد مجاهدين كانوا حاولي قلت لي استشاريين تعالوا صبروا والله بالله إذا والله عز الجهاد أيضا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى دينتنا وحين قدم تامتك الرئيسة هل لا قرقار أنت سأقدر دار ما أخي في الله أنا لا أستدعي إن شاء الله